Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteena aan jecelnahay meel walba oo aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan ramadaan kariim ku soo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha qodobada ah idinkugu haynana waxaa ka mid ah horyaalka Champions League ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa waxa uu marayaa meel xiiso leh iyadoo xalay iyo caawa la cayaaray. Haddaba waxaan fiirinaynaa natiijooyinkii ka soo baxay cayaarihii xalay iyo caawa la kala cayaaray. Waxaa xalay cayaaray kooxaha PSG iyo kooxda Bayern Munich oo marti ku ahayd wadanka Faransiiska, gaar ahaan caasimadda Paris ay kula dhashay kooxda PSG. Kooxda PSG ayaana waxa looga badiyey 1-0, inkastoo 1-0kaas ay ku badisay kooxda Bayern Munich aysan u sahlin ama u suurtagelin inay ugu soo baxdo Champions League wareegiisa xigo. Kooxda Bayern Munich ayaa waxay difaacanaysay Champions League ayaa gurigeeda Munich waxaa looga soo badiyey lugtii hore 3-2. sidaas darteed kooxda Jarmalka ee Bayern Munich oo xalay ka badisay kooxda PSG ayaa waxay ka hartay tartanka Champions League ayadoo ku hartay farqiga goolasha la iska dhaliyey labada lug oo la xisaabo tartanka Champions League ah. Xagga haddii looga soo badiyey kooxda Bayern Munich 3-2 gurigeeda looga soo badiyey, xalay waxa ay ku soo bixi kartay 2-0 iyo wax ka badan. hase yeeshee kooxda Bayern Munich ayaa waxay ku soo badisay 1-0, taasoo macnaheedu yahay in ay kooxda Bayern Munich ay ka hartay tartanka Champions League oo 8 sano u soo baxday kooxda PSG ee wadanka Faransiiska, taas oo sanadkii hore horyaalka Champions League finaalkiisa ay ka qaaday isla kooxda xalay ee reetay ee Bayern Munich. Dhanka kale waxaa xalay wada cayaaray kooxda Chelsea ee wadanka Ingiriiska iyo kooxda FC Porto oo kasoo jeeday wadanka Portugiiska. hase yeeshee si lamid ah waxaa 1-0 ku badisay kooxda FC Porto kulankii xalay ka dhacay Stamford Bridge, garoonka ay ku ciyaarto kooxda Chelsea. Si kastaba ha ahaatee kooxda FC Porto ayadana goolkaas waxba uma tarin maadaama gurigeeda loogu soo badiyey 2-0. si lamid ah sida Bayern Munich, FC Porto ayadana waxay ku hartay farqiga goolasha oo looga soo badiyey gurigeeda 2-0, inkastoo ay xalay ku badisay 1-0. sidaas darteed waxaa wareega xiga ee finaalka tartanka Champions League usoo baxday kooxda Chelsea. Ciyaarihii la sugayay ee xiisaha lahaa waxaa kamid ahaa ciyaarihii caawa dhacay iyadoo kooxda Real Madrid ay imaatay wadanka Ingiriiska, gaar ahaan garoonka Liverpool ee Anfield Stadium, halkaasoo kula dhashay kooxda Liverpool oo inta badan banooni maamuleysay weerar aan kala joogsi lahayn ku qaaday kooxda Real Madrid ayay u sahli weyday in ay kasoo baxdo wareega xigo ee tartanka Champions League ayadoo la ogyahay in Liverpool looga soo badiyey kulankii hore 3-1 cayaartii. Liverpool ayaa caawa waxaa laga rabay inay ku badiso ugu yaraan 2 iyo wax ka badan si ay ugu soo baxdo tartanka Champions League. hase yeeshee ciyaartii xiisaha iyo xamaasada lahayd ayaa waxay kusoo gabagabowday 0-0 labada kamba, taas oo ka dhigan in kooxda Liverpool ay ka hartay tartanka Champions League ayadoo la ogyahay horyaalkani ay difaacanaysay in ay mar hore macasalaameysay, ayadoo hadda Liverpool uu walwal ka saaran yahay usoo bixitaanka sanadka dambe ee tartanka Champions League. waxaa kaloo caawa dheeray ciyaar xiise iyo xamaasad lahayd kooxaha Manchester City iyo kooxda Dortmund ee wadanka Jarmalka. Kooxda Manchester City ayaa waxay caawa booqatay Jarmalka ayadoo lugtii hore ay gurigeeda kusoo badisay 2-1. hase yeeshee ciyaartii caawa dhacday ayaa waxaa kooxda Manchester City looga naxsaday gool, taas oo haddii looga badin lahaa ay tartanka macasalaamin lahayd kooxda Manchester City oo tan iyo intii Pep Guardiola u dagaalamaysay in ay qaado koobka Champions League, inkastoo sanadkan wacdara ka dhigayso hori tartamada ay dhammaantood ku jirto. Manchester City loona saadaalina inay sanadkan tahay sanadkii qaadi lahayd 4 koob ee u tartamayso ayaa waxay baraajisay qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda Borussia Dortmund oo 1 gool ku hormartay. hase yeeshee aqoonsiga ciyaarta dhammaan rabta ayaa waxaa laga dhaliyay gool labaad kooxda Borussia Dortmund ayadoo labada lugba laga badiyey kooxda Borussia Dortmund. kulankii hore 2-1 looga badiyey, kulankii dambena 2-1 looga badiyey ayaa sidaas waxaa ku macasalaameysay tartanka Champions League kooxda Borussia Dortmund, waxaana group dhankaas ka soo baxay kooxda Manchester City. haddaba waxaa soo baxay
xalay ay soo baxeen laba kooxood iyo caawa ay soo baxeen laba kale. Waxaa iskugu soo haray tartanka Champions League afartaas kooxood oo kala ah kooxda Chelsea, kooxda Manchester City oo labadaba ka dhisan wadanka Ingiriiska, iyo kooxda Isbaanishka ee Real Madrid, iyo kooxda kale ee Faransiiska PSG. PSG ayaa sanadkii hore waxay imaatay fiinaalka tartanka Champions League ayadoo looga qaaday 1-0, waxaana ka qaaday kooxdii Jarmalka ee xalay ay gudaheeda ku reebtay ee Bayern Munich. Haddaba dhegeystayaasheena waxaan weydiin doonaa cid ay u saadaaliyaan in ay qaadaan tartanka sanadkan oo ah tartan xiiso badan. Waxaana isku soo haray afarta kooxood, laba koox oo Ingiriis ah, hal koox oo Faransiis ah, hal koox oo Isbaanish ah. Waana labada Ingiriiska waa Chelsea iyo kooxda Liverpool, halka Isbaanishka ay ka socoto kooxda Real Madrid oo keliya, dhanka Faransiiska ay ka socoto kooxda PSG. Haddaba waxaan eegi doonaa qaabka la iskugu soo aadiyo annagoo haddaba la fahamsan yahay ama la saadaalinayo in ay isku dhici doonaan labada koox oo Ingiriiska ah, Chelsea iyo Manchester City. Cideebaa fiinaalka usoo bixi doonto haddii qaabkaas iskugu dhacaan. Dhanka kale haddii isku dhacaan kooxda PSG iyo Real Madrid, yaad isleedahay waxay usoo bixi doonaan fiinaalka. Haddaba waa ciyaaro xiiso leh. Tan iyo intaa ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.